munaasabadan ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah jaaliyadda reer Somaliland isla markaana taageerayaasha xisbiga UCID ayaa waxa lagu qabtay hoteelkan aan ku suganahay Hilton oo isagu ku yaala galbeedka magaalada London waxaana soo agaasimay jaaliyadda Somaliland ee ka soo jeeda gobolka Awdal haddaba ujeedada ugu weyn waxay ahayd xog wareysi iyo waliba soo dhaweyn ay reer Awdal u sameeyeen Dr. Maxamed Rashiid oo ah gudoomiye ku-xigeenka xisbiga UCID isla markaana ah murashaxa madaxweyne ku-xigeen ee Somaliland garabka xisbiga UCID waxaana sida aad arkaysaan ka soo qayb galay dad aad u fara badan oo ka mid ah jaaliyadda reer Somaliland haba u badnaadeen taageerayaasha xisbiga UCID haddaba waxa goobtaasi ka hadlay dad aad u fara badan oo ka mid ah madaxda xisbiga UCID qaarkood hadaladooda waxa ka mid ahaa xisbiga UCID saad loo socotaan waa xisbi isbeddeldoon ah change ayaan u baahanay Somaliland maanta insha Allah change-ka waxaynu hogaamin doonaa mudane Faysal Cali Waraabe iyo Dr. Maxamed Rashiid Sheekh Xasan qofkii ogina wuu ogay qofkii aan ogeynna ma ogaa 1960 markaynu calanka qaadanay magaalada tuulada Leydha Boon mashruucan ballaadhay iska wuxuu qabsan Leydha halkii laga bilaabay weeye iskuul bay u horeeyay elementary-ga ay dhiseen iska wuxuu qabsadaa maqasheen waxa laga bilaabay Awdal tuulada Boon baa laga bilaabay mar labaad ujeedada marka hore gogashan loo fidiyay baa ahayd in madaxweyne ku-xigeenka xisbiga UCID mudan musharaxiisa koobaad lagu wareysto oo bal xog wareysi lagu weydiiyo wadankii xaaladdu marayay taasaynu caawa uga fadhinay runtii waxaa farxad iyo caawa inuu halkan nala joogo musharaxii madaxweyne ku-xigeenka xisbiga UCID Dr. Maxamed Rashiid Sheekh Xasan runtii waxaan filayaa inaanu inooga baahnayn barasho fara badan iyo sharaxaad Maxamed Rashiid waan wada naqaanaa aqoonyahan suxufi taariikhyahan suugaanyahan muwaadin ay ku dheer tahay Soomaaliyadnimadu iyo shakhsiyad diin iyo dhaqan islaam leh UCID runtii way asiibtay Maxamed Rashiid markay u magacooday musharaxa madaxweyne ku-xigeenka Dr. Maxamed Rashiid runtii waxaan u maleynayaa gudidii dooratay inaan halkan caawaanu ka joogo waxaan ka mid ahaa gudidii qabanqaabada ee shirweynaha golaha dhexe runtii waxay farxad bay tahay inaan halkan ka sheego dareenkii aanu ku dooranay Dr. Maxamed Rashiid iyadoo ay halka marayeen musharaxiin fara badan oo aanu anagu gudi ahaan kala shaandheynay Dr. Maxamed Rashiid maadaama uu noqday aqoonyahan ku qaaliya caam ahaan Somaliland taariikh ku leh caam ahaan Somaliland hore iyo dibba runtii muu jirin qof jagada u qalmayay oo kula tartamayay goobta iyada ah xafladan ujeedadeeda ugu weyn waxay ahayd soo dhaweyn iyo xog wareysi musharaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga cadaaladda iyo daryeelka Dr. Maxamed Rashiid Sheekh Xasan Dr. Maxamed Rashiid wax badan baa la yiri laakiin waxaan oran karaa xisbiga cadaaladda iyo daryeelka waa xabagta isku haysa ama waa rukumadu ku socdo kuwa ugu adag weeye Maxamed Rashiid political program-ka iyaga xisbiga ninkii unkay ee aasaasay weeye waa aqoonyahan runtii sidii raggii iga horeeyayba rag iyo dumarba aad moodo in xisbigu uu u helay nasiib halkan waxaan ku soo dhaweynayaa martii sharafta ka soo qayb gashay aabahay Maxamed Rashiid Sheekh Xasan Guuleed oo halkan ugu casuumay caawa and Abo I hope you have a good luck for the next election and inshallah waad helaysaan marka aba kugu soo dhaweynayaa Thank you very much.
runtii aad baan faraxsanahay marka waxa laga yaabaa hadaladii aan doonayay halkan ka idhaahdaba inaan qaarkood sidii aan doonayay inay isugu taxmaan isku taxmi waayaan aad iyo aad baad mahadsantihiin dhammaan waxaan kaloon aad isugu sii aad mahadnaqinayaa mahadnaqu sii celinayaa aad u weyn qaybta lixaad kale ay ka qaateen gobolka Awdal aad baad u mahadsantihiin xisbigan madaxdiisu waa dad astaanta nabadda ee maanta Somaliland wax weyn ka soo sameeyay wuxuu astaan xisbigan u yahay i'tiraaf hadii la raadiyo annakoonan xukun haynin ba xisbigani madaxdiisu ugu badan tahay inta wadana ee mareen iyo inta madaxa dunyada kala hadleen ayna cid dawlad tii hore iyo tudama midna ayna kala hadal marka waxa kaliya xasuusinaynaa waxa weeye can we make the difference I think we can do we can do yes we can do waa sameeynaa sooma si kastaba ha ahaatee munaasabadan ballaaran oo ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah jaaliyadda reer Somaliland isla markaana ay ahayd mid lagu taageerayo xisbiga UCID ayaa waxaa sidoo kale lagu soo dhaweynayay gudoomiye ku-xigeenka xisbiga UCID sana Dr. Maxamed Rashiid hogaamiyaasha xisbiga UCID Dr. Maxamed Rashiid iyo waliba gudoomiyaha koowaad ee xisbiga UCID Faysal Cali Waraabe ayaa labadooduba waxay yihiin aqoon-yahano oo ka mid ah aqoon-yahanada reer Somaliland isla markaana Dr. Maxamed Rashiid waxa uu jaamacad uga baxay dalka Ingiriiska halka injineer Faysal Cali Waraabena uu isna uga baxay jaamacad dalka Soomaaliya waxaana ay u muuqataa inay yihiin laba hogaamiye haddii ay ku guuleystaan doorashada ay hogaamin doonaan dadka reer Somaliland waa sida hadalka ay u dhigeen qaar ka mid ah taageerayaasha iyo waliba jaaliyadii ka soo qayb gashay munaasabadan ballaaran ee caawa hoteelkan Hilton ee magaalada London lagu qabtay labada xisbi mucaarad kulmiye iyo UCID ayaa si aad ah ula kulma jaaliyada ballaaran ee Somaliland ee ku nool guud ahaan dalka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London Ibrahim Umar Baafe wararka Universal London